xildhibaan cabdiqaadir maxamed faarax oo kamid ah xildhibaanada ka sharaxan golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley ayaa maanta ka warramay ajandaha siyaasadeed ee u qorshaysan haddii uu ku guuleysto xubinta xildhibaanada golaha deegaanka xisbiga kulmiye waxaanu sheegay cabdiqaadir maxamed faarax in ujeedadiisa iyo hadafkiisa maanta ay tahay dhiirigelinta da'yarta iyo waliba adeegyada arrimaha bulshada ee asaasiga ah taas oo sheegan guud ahaanba loo baahan yahay wax laga qabto adeegyada kala duwan ee bulshada reer Gabiley u baahan tahay haddii ay noqoto caafimaadka waxbarashada beeraha iyo wixii la mid ah musharax cabdiqaadir maxamed faarax oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa wuxuu yiri waxyaabo oo qabadyo badan oo biyuhu had iyo jeer ay aad u dhaafaan ama ay u sameeyaan biyuhu marka roobku doo hakad ma laha toos u dooxyadu tagan dooxyaduna badda ay ku daraan wixii taa laga hortagi lahaa ayaan loo ururdaaran lahaa oo hay'adaha wax qabadka sameeya ee dhinaca beeraha mashaariicda beeraha qaabilsan aan ugu yeedhi lahayn in uran lahayn dadka miyiga ee wax soo saarka leh ee gobolka wax soo saarka u leh in ay wax qabtaan oo ay sidii ay biyaha ugu kaydin lahaayeen amba beerahoogaasi ay aad ugu bixi lahaayeen oo sharca amba loo dhoofin lahaa amba wax lagu qaban lahaa amba bulshada reer Gabiley ay wax tar ugu yeelan lahaayeen ayaan la sameyn lahaa oo wax lagu qaban lahaa oo hay'adaha ku soo xil lahayn wax qabadeeda waxaas kamida markaa wasa xildhibaan cabdiqaadir maxamed faarax ayaa kamid ah xildhibaanada farakutiriska dhalinyarada ee ka dhex muuqda xisbiga kulmiye guud ahaanba gobolka Gabiley iyo waliba musharaxiinta kale iyagu ka sharaxan waa Nimcaan Dheeg Ibraahim Hadwanaag News Gabiley.